بالله وحي هذا الله في الاستاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فسوق القرياشة مناسبة الحفلة يعني كسر دوينه سنة الكتر فدران كصومالية برلمان كيسا سعيد سياد الشروع سعيد سياد الشروع ما أنا كريم سنة اليهي مسؤولية كلا يقصوا قبتي deegaanada galmudug iyo waliba heer kale oo federaal oo dhinaca wasaaradda maaliyadda ah oo kaga horeeyay waxa soo dhan khibradiisu ay tahay dhinaca maaliyadda sida dad badan aysan ogeyn laakiin aniga aan ogahay Saciid Siyaad waxa uu noqday laba jeer wasiirka maaliyadda ee galmudug iyo markale uu noqday wasiirka bii'ada iyo deegaanka ee galmudug kadibna senator uu noqday wixii ka horeeyay waxay ahayd siyaasad kale oo ku dhex jiray oo wasaaradda maaliyadda ugu shaqeyn jiray Saciid Siyaad Shirwac waxa uu noqonayaa mas'uulka ugu horeeyay ee federaal ah heer kasta ha noqdo heer madaxweyne wasiir wasaare wasiiro xildhibaano senataro qofka ugu horeeyay ee maalmo noo yimaada waa arrinta taas anaga inay farxad gelin doontaa waxaan filayaa inay jiri doonto mar kale inay mas'uuliyiin ka iman doonaan halkan laakiin hadda qofka ugu horeeyay noo yimaada mas'uulka ugu horeeyay senator Saciid Siyaad Shirwac ayuu noqday maalmo iyo waliba deegaano kale oo laga yimid oo iskoona ah iyo waliba waxa laga yaabaa in dalal kale laga yimidba inay dadka halkan joogaan dhamaantoodna waxaan ku salaameynaa masabka iyo darajada ay leeyihiin halkan ku joogaan munaasabadan waan bilaabeynaa munaasabada waxaan uga afeefanaynaa dadka khudbeynaya inay ahaato khudbadaheenu iyo hadalkeenu inuu yahay munaasabad lagu soo dhaweynayo mas'uulka macaawo martida noogu ah magaalada Maalmo senator Saciid Siyaad Shirwac waxaan filayaa dad badan oo noo qoran ayagana inay waqtiga ilaalin doonaan si munaasabada qiimo ay noogu yeelato haatana waxaan ku bilaabeynaa aayadaha quraanka kariimka ah Sheekh Maxamed Xuseen ayaa jooga Sheekh Maxamed Xuseen soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حب لأخيك كما تحب لنفسك أو كما قال. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أبو ماسية الشيخ محمد حسين وكميدة الرضياش يقولوا مشاغلة مالمو. sidoo kale xafladda waxaa marti ku ah oo jooga xildhibaan Joaquin Sondel oo ka tirsan baarlamaanka Sweden ahna oo frontaha social democratic magaalada Maalmo sidoo kale waxaa jooga Maxamed Yaasiin oo wada garanaysan oo isla magaaladan idinla degan kana mid ah musharaxiinta haatan u tartamaya xildhibaanada baarlamaanka Sweden من هذا الكم جرى يا هاي
gadaasheeday joogaan waa ilooba suuragalna ma ahayn inaan indha gadaal ku yeesho ayga raalli ahaadaan haatan waxaan u yeerayaa si mataqaanaa dadka ka soo qayb galay munaasabadan ay hadallada uga jeedeen halkan munaasabka ah waxaan ku hormarinayaa professor cabdullaahi xaaji yuusuf oo aqoon-yahan degan magaalada professor cabdullah السلام الله عليكم كل يوم وسلامتي مرتبة وسلامتها كم تلك المحاولة مش هتاخد بالأكيد هل كان هو حنا قلنا ارتقادي أنا محمد فرح سنة هاي السنة كان له يميت السؤال هو هي لو مش عارفين صار على النوم أنت أصلا عليه حاول والرجل دمر عرور لأنك اسكو كاني أو ما كنا وقفت وقت ما هذا مين بالنا ما هذا لا يبقى ما كنا إذا كان واحد ربي أنا السياسة كل مرة بينا كم واحد ربي خلي بانكا أما هو معك خليهم بس سنة معنا سنة معنا سؤال مجلس زمان أوكي سنة واحد كلا أورام لين واحد ربي عليه كاري أو ربي فرتين كاري نعم كودر واحد ربا حمر واحد التدريبات هذا كده مشاكل من هيس موجودة لكن waxaa jirta mashaakil gaar ah oo weligeed ka taagnay waxaa jira ugu yaraan 5,000 10,000 oo ah 10,000 5,000 caankan oo kale oo ah dadka bacda degan meel aan lahayn cid waxaas ay injirin cid waxa qabata ay injirin masaakiin baa lagu magacaaba waa baalka aan kalata waxaan rabaa inaad noqotid hadii ilaahay idmo tan ugu soo saarto karto dadkaas inaad murtafajo noqotid وأكيرسيسي ودولة والشيفتي وعدي شغل أكوستم تذكر مساكين تا مال تجار أنا هيسا روح كنت إيه واحد يقطع هدي أي نقطة أنا أي واحد يقطع زيادة أنا نوشة هذا نوع هدي لا إنه دي واحد يخرب كرئيس واحد يخرب كذا لكن الناس مهم وياه إلى حتى واحد يقطع مثلا واحد أنك إلي جماعة لكن واحد كسر سؤالين وياه لما كان ربنا كنت ماشي فوق عن كذا والله ما مفتوح والله ما صنعيه وانا كده بس يبقى وين وكنت على الصومالي وحكينا هيك نمبر 1 وحنا ما كان نوقف مع سنتين قول ما سيد بروفيسور عبد الله sidoo kale waxaa jira odayaal iyo haween iyo dad kala duwan siyaasiyiin halkan ka hadli doona haatana waxaan u yeerayaa mid ka mid ah odayaasha deegaanka maalmo maxamed nuur السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما هو سلامتين عيال شرفت علي أرجع أسبوع تبدي كسر قلب شيء سولويته سعيد سياد شروع سنتر وسير واحد بدل ما شيء لكن سنتر يعني كسب على الأرض بعيد marka waxaan ku salaameynaa macnaha uul farandaheena maalmo ninka la yiraahdo Sheekh Maxamed inta waa salaameynaa halka la soo dhaweynta lagu sharafteen inaan nala soo dhaweystaan sanadarkeena aad baa ugu maasantiin inta marka ka gudbo waxaan u maleynayaa ninka la yiraahdo xariiriyaha xogaa waxa uu loobay ma aha marka koobaad oo mutaqaanaa soo dhaweyno dad madax ah waxaan soo dhaweynay Cabdullaahi Buuda Bare oo ah wasiirka waxbarashada waxaan soo dhaweynay oo la socday macnaha ninka gudoomiyaha waxbarashada ahay iyo aqoon-yahano badan soo dhaweynay waxaan kaloo soo dhaweynay ninka la yiraahdo Sheekh Ibrahim Dheere oo ka socday dowladda hoose inta waa soo dhaweynay waa markii saddexaad loo yimaadeen macnaha dad ka socda dowladda marka waxaan leeyahay hadda marka Saciid wuxuu ka tirsan yahay aqalka sare waa hay'ad ugu sareysay macnaha dowladnimada ugu sareysay weeye marka waxaan leeyahay Saciid بعد عاون ولا جوكتو دحوا لهم حل
hay-adda ugu sarraysa dowladda hadday nala joogto wax walba way nala joogaan caawo wixii kaloo macnaha haddaad waqti u hayso inaad wax looga tataabato taasna waa iyadana waa mida ku leenahay mataqaana aan ku weydiisanayno waxaan rabaa inaan ku darsado taas waxaa jirta wax la yidhahda baasimedii wuu qaribay qofna wax hore wuu qoraya qofna walaalee wuu dhintay meeluu ka soo xigtay lama malaha wasaaradda warfaafinta waxaa la hayaa sharciga waa gudbuday in macnaha qofka macnaha lagu xisaabtamayo wixii sharciga wixii qabanaya iyo wixii xaq u leeyahay inta waa la hayaa maxaa keeni waayey in lala xisaabtamo qofkii qalad galo arrintaas markaa damaanaba aad tihiin oversize aad tihiin aan la ka batiin macnaha aqalkii sare iyo haddii u madax banaan yihiin aqalka hoose arrintaas ayada kulley waa wax kale laakiin inaad adinka arrintaas daba gashaan oo lala xisaabtamo macnaha nimankaan macnaha ii sheeg wax kasta iskaga dhawaaqayo iyadana wax loo baahan yahay waaye wax badan oo macnaha waxaa jirta macnaha ii sheeg loo baahan yahay laakiin mar raba inaan kugu sii dheereeyo waxaan leeyahay dhammaan inta kasoo qayb gashay iyo macnaha inta meeshaan iskugu timiday waa aad baad ugu mahadsan tihiin sicid waxaan ku leenahay kusoo dhawow magaalada maalmo waa magaala madaxda saddexaad ee Sweden dadkeeda waxay sharaf ku leeyihiin waxay tahay mar walba oo la yimaado waa dad macnaha midnimada ka shaqeeyo aan lahayn wax kala soocan marka magaalada maalmo dadkeeda midaysan Soomaaliya oo helaasiisa macnaha islaan dawlad midaysan Soomaaliya kusoo daysaday hadda waxaan leeyahay magaalada maalmo oo ummadooda midaysan tahay kusoo dhawow intaas ayaan assalaamu calaykum waraxmatullaah aad buu baasay maxamed nuur laakiin ujeedkaygu ma ahayn anigu inuu ahaa mas-uulka ugu horreeyay halka yimaada waxay ahayd mas-uulka ugu horreeyay ee dowladda hadda jirta ugu horreeyay halka yimaada dowlado hore inay imaan jireen in magaalada waa joogi jira waana xanaynta tilmooga aad buu baasay maxamed nuur xusuusintiisa haatana waxaan u gudbaynaa magaalada maalmaan ka boodaynaa iyo tabooriyan aadaynaa محمد سلاديرو مرح مسكين يا مال محمد سلاديرو وحمد الله عاو كسر ذلك شحنته أي كسر لوينه محمد سلاديرو كسر له ما أنا محمد سلاديرو كلية إنه يحيي متعنا ضد كان كسياستنا نقول كلية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مادام أنت أنا Soomaali ku hadlayno marka waxaan jeclaan lahaa salaantiina kadib iyo soo dhaweynta senatorkeena sharafta leh inaan marka hore aan martida Soomaaliga aan uga hadlaynin aan soo dhaweeyo anigoo oranaya jag vill härmed välkomna Joakim som jag precis hört är en riksdagsledamot och kandiderar också nu det här kommande mandatet. Jag vill välkomna dig hit och jag hoppas och uppmanar mig och till er alla att delta och rösta. Rösta och rösta rätt. Jag ser att vi har också en representant från Miljöpartiet där, socialdemokrat. Och jag hoppas att ni alla har fått en uppfattning om vilket parti ni ska rösta på. Så rösta rätt. Det är alldeles högst prioriterat det här valet. Ni förstår varför vi måste rösta rätt. Jag vill säga härmed välkommen igen. inta dabadeed walaalayaal magacaygu waa sida la sheegay maxamed salaad waxaan rabaa anoo ku hadlaya maaragtay jaaliyadda magaca youtuberi inaan ka mahad celino casuumaadda fadlan casuumay oo walaalihii dhigay xafladan una dhigay soo dhaweynta senator Saciid Siyaad inaan uga mahad celino inay noo yeereen soo dhaweynta macnaheeda senatorku waxay xambaarsan tahay awalan dadka iyaga Soomaaliyeed inaan horta qiimayno cidda nagu matalaysa ama dadka heer federaal ee qaranka ah oo ah idmanayaal u idman inay anaga noo shaqeeyaan inaan qiimayno ixtiraamno marka ay jaaliyadaha dibadaha ay yimaadaan taasoo ay noo daba taalana in aan kula xisaabtano waajibaadka ummadda horteeda ay qaadeen ay u hayaan waxaan kaloo rabaa anagoo ka faa'iideysanaya fursaddan dadkeena Soomaaliyeed qaasatan senatorka senatorka waa senatorada haddaad ogtihiin waxaa laga soo doortaa maamul goboleedyada wuxuuna kasoo jeedaa oo laga soo doortay galmudug sida idaacadaha aad kala socotaan abaaro ba-an iyadoo ay jiraan oo dadku ay aad iyo aad u liitaan oo aad iyo aad abaaro macnaha macluul ku dhow qarka loo saaran yahay baan isna hadda qolyaha cadowga ah
waxay xasuuq ba-an ka wadaan deegaanada galmudug iyo hirshabeelle magaalada hiiraan ee gobolka hiiraan soona beledweyne maanta u dambeysay waxaad arkayseen xasuuq ba-an dad shacab ah oo aan waxba galabsan oo loo geystay qof walba waxaa laga yaabaa in si gaara walaal ama waalid ama qaraabanimo loo soo wacay laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan si guud uga tiirayoonno ka xumaano weliba aan nacaladno kuwaas yacni wax kale oo lagu tilmaami karaa ma jiraan senatarkana waxaan ka codsanaynaa ka mas-uuliyaddiisa heer walbo ay gaarsiisan tahay in shacabka soomaaliyeed aan lagu cidlaynin cadowgaas waxaan aragnaa dowladda ballanqaadya samaynaysa dowladda ku dhawaaqaysa dagaal haddana furimaha kama aragno abaabulkooda ma aragno joogistooda ma aragno marka ma ahan cadowgaas abaabulan ee u abaabulan inay shacabka gumaadaan in loo cidleeyo shacabkii waa in dowladdu ay qaadaan mas-uuliyadda difaaca dadkeeda waana waxa ugu muhiimsan marka laga tago maaliyadda iyo siyaasaadka la isku hayo maanta oo kale ma banaana in siyaasaadka dhexdiisa lagu murmo laisku khilaafo aragtidaas magaranaysaa kala duwanaanshiyaha ah kolley dibbaaba la isaga imaan doonaaye cadow aan kala reebayn oo noo madab eg oo nagu dhex nool oo hubaysan oo saqiirada aada aragteen maanta jawaanada lagu dadaaminayo meydkooda gowracay kuwaas aan meel uga soo wada jeesano qabiil ma lahan koox ma lahan magac kale ma lahan kuwaas aan iska dhicinno dowladduna intaa ha maqasho dadka yaan loo loogin inta dagaal la iclaamiyo oo aan looga horreynin ma garanaysaa shacabkii aan wax gurmaday wax saada aan haysan awalna ay biyo la-aani haysay yaan dadka loo loogin cadowgaas fadlan intaasaan codsanaynaa senatarkuna inuu gaarsiiyo waa jecel lahay waa ku faraxsannahay soo dhaweyntaada senator saacada soo wasiir waa wasiir heer gobol ah oo aan kula shaqayno kuna jecel lahay marka soo dhawow mudane adiga iyo magaranaysaa wafuudda dambe oo midhaa imaan doonta aad iyo aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu aad buu u mahadsan yahay siyaasiga daad yar ee nooga yimid tabooyi maxamed salaad yarow waxaynu waxaan dhex gelaynaa xilliga salaadaa la gaaray boosiyaan qaadanaynaa salaadan dukanaynaa insha allahu tacaala sida maamulka noo sheegay anigan aan ogaa in salaada la gaaray xilligeedii waan dukanaynaa insha allah waan isku soo laabanaynaa waqti yar oo kooban raxmatullaahi wabarakaatu martida sharafta leh wiilasha quruxda badan iyo gabdhaha iyo maamooyinka iyo aabbayaasha dhammaantiin waxaa idin leeyahay kusoo dhawaada xafladan quruxda badan leh aan kusoo dhaweynayno senator saciid waxaan leenahay senatorka soo dhawaaw kusoo dhawaaw magaalada maalmo waa magaalo isku duuban soomaalida joogto dhan walbay ka yimaadeen iyo meel walbay ka yimaadeen waa dad isku duuban oo markii ay noqoto xaflad sidaan oo kale oo lagu soo dhaweynayo xildhibaan ama senator ama qof nooga yimid meel kale aan mid ka wada nahay si aan usoo wada dhaweyno oo maaragtay wadajir ah marka waa uga mahad celinayaa kasoo qaybgalayaasha senatorkana waxaan leeyahay kusoo dhawow magaalada maalmo waan salaamayaa martida sharafta leh dhammaantood intii kasoo qayb gashay waxaan si aad iyo aad u salaamayaa walaalkay maxamed oo nooga yimid youtubori 3 saacadood soo socday iyo tiimkiisa waxaan leeyahay maxamed walaalkay soo dhawow adiga iyo tiimkaaga kusoo dhawaada magaalada maalmo iyo magaalada youtubori inaan isku xirnaan doonaynaa insha allah hadduu ilaahay raalli ka noqdo ilaa iyo muqdisho oo nooga yimid senatarka marka waxaa idin leeyahay soo dhawaada dhammaantiin waa mahadsantiin warkay horaa loo yimid intii badan waa maasan tahay nimco weli waxaan ku jirnaa khudbadihii iyo sheekooyinkii ay noo hayeen dadka ku nool magaalada maalmo laakiin markaan waxaan ka nasanaynaa hadalka iyo khudbadihii waxaan u yeerayaa gabadha la yidhaahdo siyaado cali gabay burambur waa diyaar siyaado gabadha la soo dhaweeyo
هبل ماهي مؤلفنا ماهي لكن صمد وحيكون مع هذا نو والله ما شبكته استجيب بالبشار ولعديdu waa meel iyo dareenka aan qabo waxaan daynay dacteed i haysaa oo iiba daynay intaan dunida joogay dalkii aan lahaa iyo siduu yahay dadkiisii isdil iyo isdoox iyo doorkoo la dilo iyo dowladnimo la diidiyo doqonnimada mooye aan lahayn dareen kale lama daayo hadaloo doodaa waxay tahay lama daayo hadaloo yaa baa la daashaday doodaa waxay tahay ragow yaa degaayo dahabkiisa yaa guran doqomeentu siiyeen yaa dahabkiisa yaa guran doqomeentu siiyeen muqdishoy macaaney maamadii adduunkay dadka wada mideeyay martidana u rooney muqdishoy macaaney maamadii adduunkay dadka wada mideeyay martidana u rooney milicsiga jacaylkiyo murtida tii lahayde allahayow ku magangeli kahay masiibada ay kuu maleegeen maangaabayaashii kuwa haya mas-uulkow waa maamadiine maqaamkeeda siiya aad iyo aad mahadsantihiin siyaado aad bay u baahsan tahay laakiin markii ay sii baxaysay aniga hoos waxay igu sheegtay oo idiin sheegaan in ka qarinaayo waxay dhahday wax kale waa haayaa waqtigaan yeelanayo laakiin waqtigaan ka faa'iidaysan doona waa ku mahadsantaa waqtiga mar kale aan ku noqonno dhinacii raggaan ku noqonaynaa gabdho kale waa jiri doonaan insha allahu tacaala oo hadli doona haddan waxaan u yeerayaa guddoomiyaha jaaliyadda galmudug ee iskoone cabdicasiis buhar joofey kusoo dhaweeya guddoomiyaha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mudanayaal iyo marwooyin si guud iyo si gaar ahaaneed inta waa idiin salaamaya salaanta waxaan ku horeynayaa senateerka muqdisho nooga yimid senateer waa luuqad nagu ah luuqada ingiriisi laakiin waa xildhibaan aqalka sare ee soomaaliyeed talada waddanka dadkii maamulayay in badan baan ku salaamaynaa kalilaa baan kuu soo dhaweynaynaa halkana wax jooga soomaali oo idil oo doonayo dad iyo dal nabad ah waxaana meel dheer uga yimaadeen dad waalidiina walaalaha ubad looga soo tegay intaa waqtigooda soo bixiyey waa inuun arkaan dowlad soomaali dhawaqeeda iyo cid ka socotay inay maro maqlaan waxaan kaloo aada ugu hambalyeynaya inay loobaan rabeen maxamed salaad oo ah marti qaaliya asagii intii uu hogaaminayo tabori nooga yimid in badanna iyo tabori aada noogu soo dhaweeyey isagana waa ku mahadsan yahay kasoo qaybgalka halkan kusoo qayb galay waxaan kaloo hambalyo halkaan uga jeedinayaa inta aan senateerka 2 fariina noo faraya 2daas fariina annageena wada quseysaa waana wax noo fiican oo waa soo wadaa
kulli waxaan idin jeedinayaa intiinaan masrafka iyo munaasabka kale halkaan kasoo qayb galay inaad aada u mahadsan tihiin. mudane xildhibaan aqalka sare, waxaan si kal iyo laaba kugu faraynaa. waxaa la yidhi dab yaa garanayo ciddi ku gubataa garanaysaa la yidhi. intaan meesha wada joogto qurbo wada joogto gurigooda hooyo ma joogaan. hadday caafimaad tahay, hadday nolol tahay, hadday mustaqbal tahay, sidee rabaan uma haystaan. waxaan rabnaa inaan laba arrimood oo fariina faro. labada arrimood oo fariina farayo dowladdii waxaa tahay aqalka sare, waxaad tihiin sharci ilaaliyihii, waxaad tihiin idinkoo qaybo badan ka kooban. waxaa laga yaabaa nasiib wanaag qaybtaan ka hadlayaa inaad adigu qayb ahaan ka tahay waa laga yaabaa. anu waxaan ka hadlayaa laba arrimood. labadaas arrimoodna aad bay daruuri loogu yihiin. waxaan doonayaa Soomaali meel joogtaba dhibku wada saameeyay. Soomaalida maanta maxaabiista ku ah dalalka shisheeye ee iyagoo naftooda la raadinaya meel ay degaan, dowladda waxaan leenahay sidii kuwii hore hawsiga dabagalaan oo hala doono. qodobka labaad waxaan codsanaynaa annagu baasaboorada aan wadano dalkan weli mayna qaadan. haddii baasaboor naga dhaco waxa dal noogu sokeeya waa Germany iyo Belgium. waxaan rabnaa halkan waxaa jooga oo si gaar rabaa inaan u xuso Soomaali muwaadiniina, hooyooyinkii ilmaha iyo bulshada ugu adeego, haddana aan haysan fursadii ama magacii Soomaali aan haysan. waxaan halkan ka rabnaa in la siiyo waxa la yiraahdo consuliyad inay hesho si loogu adeego baahiyaadka iyo imkaaniyaadka bulshada guud. taasna waa fariin weyn oo aan kuu dhiibayo. inta halkaa joogtana baahideeda way wada haysaa. intaa kadib xildhibaan aqalka sare hadalka idinka badin maayo. adigii mutada Tabori madaxda waa idin salaamayaa. waxaan salaamayaa ninka la yiraahdo Maxamed Yaasiin. milyan baarti taageerahoodaan nahay waan ahaan doonaa. hadda in badanna waa idin soo dhaweynaya. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Guumaasay Cabdicasiis Guhad Joofay kaliya lagama imaan Tabori. waxaa laga yimid dalalka ka baxsan Sweden sida Norway, deegaano ka tirsan Skåne. mar kale waxaan ku noqonaynaa dhinaca khudbadaha anagoo sii wadayna. waxaan u yeerayaa aqoonyahan Soomaaliyeed Mahad Maxamed Sheekh oo looga yimid Kristianistan. mahad reer qaadno xaflada darteeda xaggaas uga yimid. mahad soo dhow. dhammaan waxaan ugu salaamayaa mansab kasta iyo darajo kasta oo leeyihiin inay tahay mid darajo sareysa. waxaan aada ugu faraxsanahay inaad aan kasoo qayb galno dhammaanteenba soo dhaweynta xildhibaanka aqalka sare Siciid Shiid Shuruuc. waxaan ku faraxsanahay maantay inuu halkaan joogo. wixii la dhihi lahaana waa la yidhi. hadal kale oo tiro badan igama baahna. aniga oo matalayo dadka gobolkan Skåne, dadba in badan hadalkaas waa laga tegay. laakiin meesha reer maalmo keliya ma joogaane. waxaa jooga Kristianistan, Helsingborg, Svalov, wax badana meelaha joogaan. laakiin maalmo magaca waa iska qaadateen. laakiin wax walba waa idinu wadaagnay. haddana laakiin teenaan sheeganayna annagana. waxaan kaloo aada ugu mahad celinaa oo raba inaan u mahad celiyo saaxiibada siyaasadeed nala jooga maanta Maxamed iyo Xaliimo. waxaan rajaynayaa ayagana hadalkoodii inay idin dhihi doonaan. waana hubaa inay idin dhihi doonaan waxa ay yihiin ayagana. waxaan se fariin ugu faraynaa inaad isu sheegtiin in aan rabno inay ayaga laftigoodu ay hiiga ku hayaan inaan nahay dad muslim ah. maadaama aan muslim aan dhibaato badan waddankan aan ka tabanayno oo la sameeyo oo kooxaha cunsuriyiinta ay sameeyaan. waxaan idinka rajaynaynaa inaad kooxahaas cunsuriyiinta dhibaatada ay dadkeena mataqaanaa gaar ahaan ay u geysanayaan inaad meel sare geysaan. jag vet att ni skulle veta allting som finns här i Sverige. Ni behöver inte, vi är muslimer, ni vet vad han gör i den här sista mannen. Så vi hoppas att ni skulle hjälpa oss, att ni skulle framföra denna ärende till riksdagen och allting som ni är. Jag vet att Mohammed har gjort mycket och han pratar hela tiden om detta och han gjort det som. Så jag hoppas att ni vet, de skadar oss
hela tiden våra hjärtan. Det är inte yttre frihet. Man kan inte säga att det är yttre frihet. Det man kan säga det är ett utrike. De skadar och dödar oss på hjärtat. Så vi hoppas att ni skulle ta fram denna ärendet till de som har politiker om detta. Tackar. Jag måste till ärade domare. aad buu mahadsan yahay mahad siyaasiyiinta iyagana way noo dambeeyaan way hadli doonaan waxaana jiri doonta haddii aan waqti u helno insha allahu tacaala in senator Saciid Siyaad Sharwac kulley su-aala la weydiin doono khudbadiisa kadib sidaas inuu qorshuu yahay waa jeclahay sida qabanqaabiyaashu ay warbixinta lagu siinayaan markaa waxaan u yeerayaa nin nooga yimid Norway Cabdiqaadir Sheekh Axmed Diirshe Cabdiqaadir kelmadiisuu jeedina asagana oo Norway ka yimid بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمام عن سلام يا صدر الجلياشة نال طرياشة شرفت له وحفلة شرفت له نوصو مقابلي هذه الأشهر وين هي سودوين تا غايها ديو شرفت وين ولوسو بيي ولكن هذا الشيء صحيح كي سياد سنتركا هذا الأسود وين هي قويها رعدة أو سياسي أنا سعد أسود هو مقالة المرموز لما أنا بالكي كوكيلة جالية نرويج هذه أدم أسود ويننا سولو فلان هاي أسود هو مقالة مرموز بعد الأسود وين هي نفتذ كذا حليلو يو محمد يو بالكي أو أيام سمعتي مالتي يوكل لكم سألوا هذا سعيد الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أما بعد وعرب مركه هوري إلى أم هذا عليو قابياشي صوماليات xafladda tan sharafta badan oo runtii noqon doonta mid aan qalbigayga go-ayn marka koowaad iyo marka labaad iyo mar saddexaad inaan mahadceliyo waxaan rabaa inaan mahadceliyo gabdhaha Soomaaliyeed iyo kuwa weliba Swedishka ah oo halka fadhiya oo sharafta badan oo idin suura geliyay suugada idinku yeelay shirkakan aad ugu sharafteen oo la'aantood waxba isdiin qabsoomeen intaas dabadeed waxaan kaga mahadcelinayaa maadaama aan ahay senator Soomaaliyeed si Soomaalinimo ah adigoo Soomaali ah inaad Soomaalinimo ugu soo dhaweysaan oo caawa aan leeyahay reer hebel iyo gobol hebel baa soo dhaweeyay mar kale maxaa badan ka hal arrin ugu taagneed oo professorka weydiiyey oo yidhi meediyaha in Allah mala xisaabtamo professor ugu meediyaha hal mar kooba lama dhisina yidhaahdaa odayaasha hore talyaaniga shaqaynteed sharcigu waa soo socdaa hadda ogow wixii hiiraan ka dhacay kuwii noo soo gudbiyey isla xaggaa ku fiirsan waa isla meediyihi lagama maayo wax xunna qof xunna dadka lagama waayo dadkuna sideedaba waxay isku raaci karaan dad wax ay qortaan oo ay dhigtaan oo qaanuuna u hoggaansama canshuurtana bixiya labadaasaa dal ku dhisma haddii labadaas la waayo waxba ma hagaagayaan sida awgeed waxaan rajaynaynaa Soomaaliya sanadaha soo socda inay noqoto mid
wixii ay qoratana aaminta oo raacda canshuurtana bixisa si dalkooda ay u dhistaan dalkan hadda aan joogno waxaan rabaa horta inka aan ku noqdo dowladdan Sweden inaan dad dowlad marka la yiraahdo xukunka markaas lama yiraahdo waa dadweynaha dowladda maqashaan dadka reer Sweden waxaan qabaa inay idin soo dhaweeyeen idin sharfeen sida ugu fiican ay la dhaqmeen sababtoo ah waxaan joogaa bil iyo waliba 15 casho ugu yaraan ilmahayga jooga oo halkan Gothenburg degan 10 sano waxbay ku barteen qaarkood waa halkaan ninka ka muuqda u jeedaan halkaan uu ku soo karo asagoo yar weeyay meesha haddana waa nin mas'uul بلوغادا waxaa la yiri qofka bini aadamka ku shukrin ilaahayna kuma shukriyo Sweden waxaan ogahay dowladaha Soomaaliya caawiya hadaanay dalka labaad iyo dalka saddexaad kuma jiro Soomaaliya aad aragteen oo waxa laga soo maray aad aragteen wadamada canshuurta dadkooda ay ka aruuriyaan ku bixiya bal inay soo taagto ay kamid tahay Sweden kuna horeysa waxaan rabaa marka inaad ula dhaqantaan dadka inaad isku diintiin qasab maaha waxa ay ku dhaqmaan waa inaad dhowrtaa waxa kale waa inaad dhowrtaa laakiin waxa idinka dhaxeeya waa dalkan haddaan dhowrin hadda ogaanka anagiina soo galna waa ogtii waxaan rabaa inaan idinkala hadlo dalka doorasha ka socota codkiina inta halkaan fadhisa anoo kale iyo maahan kulli codaad leediin waa idin ogahay aniga xataa eber ma baasaboorka yar haysta Swedishka laakiin waa wax dooran kari codkiina ka faa'iideysta guriyaha ku xiraanina hala gambanina wiilashaas iyo dadka aad garanaysaan oo asxaabta iyo xisbiyada aad aniga iga aqoon badan tihiin codkiina siiya oo hadduu idinku xumaado sanadka daba iska bedeli doonta laakiin codkaaga la seex waa muhiim waxaan rabaa inaad iin sheego senator Soomaaliyeedaan ahay ka soo galay Galmudug hadda waxaan baarlamaanka golaha wasiirada hordhignay sanadka soo socda dowladda hadda soo socoto Galmudug oo soo socda inaan mar dambe 89 xildhibaan ka kooban yihiin xildhibaanada Galmudug in aanan dooran mar dambe xildhibaan dadka reer Galmudug ay doortaan xildhibaankooda iyo madaxweynahooda waxaan marsiinaa golaha wasiirada haddana baarlamaanka hor yaala Galmudug waxaan rajaynaynaa oo ilaahay idinka aan rajaynayaa maalmaha soo socda halkaas inay lagu ansixiyo in sanadka soo waxaas time ku xiga in dadka reer Galmudug ay u dareeraan codkoodana ay wax ku doortaan dowladda Soomaaliyeedna qorshaha koowaad ay ugu jirtaa sababto ay tahay 329 xildhibaan ka koobana 275 golaha shacabka la yiraahdo iyo 54 sanatar oo loogu talagalay sida sharcigu yahay waxa ay nimankaan soo sameeyaan haddii sidii la rabo aysan noqon in loo gudbiyo aqalka sare oo markaas diidaa waa taqaan aqal sare iyo aqal hoose u wada shaqeeyaan waxaan rajaynaynaa waxyaalihii la soo maray annagu haddaan Galmudug nahay waxaan rabaa inaan idin caddeeyo galabta dowladdii horena waa la shaqeynay mid dambana waa garab taagan sababto ay tahay waa ku daalay hebel ka daadi waa ku daalay waxaan u aragnaa hebel ka daadi kelmad dadka Soomaaliyeed caqabad ku noqotay
ودباتو نينكو وحال الدورتا أفر سنة حتى وحماذا أسياء اسكحمية انت أكاد يسيدو أفرتيس السنة لا شقيسيد هذا وحكا أسياء له لكن halka hadda kula dhigto cuqdad iyo balaayo iyo anaga reer hebelaha waxna loo ogolayn waa dhibaato aanan rabin anaga ina dilatay caruurtana inay gaarto ma doonin beedilaa kale Soomaalinimo waxaad ku weyday wallahi inaad qabiil ku keenin aslan waxaan rabaa inaan idinku booriyo Soomaalinimo inaad isku xiraataan raja ay gashay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay reer maalmo Soomaali isku duuban oo Soomaalinimo ka muuqato baad ila egtihiin waaba tihiin ilaba ekidin hale ahaada waxaan rajaynayaa inaad sii wadaan oo mid macno la idin noqoto waxaan rabnaa ilaahay hadduu yidhaahdo waxaan ahaa muddo dheer dowladdaana kusoo dhex jiray dowladdii markay burburtay nin waxaan ahaa ka shaqeeya wasaaradda gaashaandhigga oo warshadii tolmada xoogga dalka Soomaaliyeed ka soo ruuxay maalintii xadahay waa soo mooday oo burburaa dhacay oo waa soo kacaa kufay oo maamulihii kastamta dekedda Muqdisho waa soo hayo waa ka sii gudbay oo galmudugaan tagay oo waxaa noqday wasiirkii maaliyadda ee galmudug waa ka sii gudbay oo halka dowladdii madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo madaxda ka ahaa markay dhamaatay 2 sano waxaa noqday wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliya ku taqaan ragga inta ila midka oo Soomaaliya ku taqaan wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada waa hamik xamid jiri wasaarad waxaa la dhiibay habay yaraatee magac maahane hal xafiis aan lahayn wasaaradihii dhuusamareeb oo dowladdii Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariisto oo ka tagana xafiis damaba jirin wasaarad ku jirta meesha qorshaha ma ahayn ee wasaarad kasta oo dowladdaas ku jirta dhul ay ku lahayd xafiisay ku lahayd wasaarad dowladeed oo aan dhuusamareeb dhul ku lahayn ma jirto waa midaan damaba jirin ma abuureen isbeddelka cimilada ma jiro waa fikiraysaa yeeshaa walbaka warqad u qortay ilaa adduunka lagu soo korriyay wasaaradda isbeddelka iyo cimilada adduunka lagu soo korriyay hadda adduunka wuxuu ka shaqeeyaa cimilo iyo amni hadda ogtiyaa haddii kale walbankii madaxweynihii dowladda galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye xafiiska ugu tegay madaxweyne saanaa jirta wasaaraddan waana lagaba maarmaan dhulka Soomaaliyeed oo aad maqasheen wuxuu la roob la yahay 80% waa dhibaato loo geysta deegaanka roobkii xadida waxaa ka da anaga iska xadnay geedihii jaray eberay ka dhigay warqada madaxweynuhu igu lifaaqay walbankii dowladda hoosena warqada u qoray dhul banaanna waa la isiiyey waxaa la halkaasaad ka dheesashan kartaa wasaaradda walbankii warqadii waa ii soo jawaabeen ayaan kadib waxaa la yidhi baahidaada gawar waxaan isku dayay waxa ugu yar oo guri xafiisyaal lagu dhisi karo inaan walbanka u gudbiyo sababto inta haddaa idhaahdo dhacdhaciya uu sheegaya ninkii odaga ahay haddaan ka doono waxaan garanayaa inaysan garanayo aan idiin sheego waa ii caddeed 85 kun u gudbiyey gebigeeda xafiis ku badan ka dhigaha 85 kun waa liisu approve gariyey hadda maanta waxaa dhisan wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada xafiiskii wasiirka wasiir ku-xigeenkii agaasimihii guud intaasoo waaxyood shaqaduna waa socotaa waxaan rajaynaynaa weliba aan ku faraxsanahay dowladda talhadda Xasan Sheekh wuxuu magacaabay wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada oo awal dowladda xataa kaba jirin wasaaraddaasi waxay ahayd agaasin yaroo ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha
hadda wasiiraa loo sameeyey halka anoo joogaa laysoo wacay warshiraa la isugu imaan wasiir ku-xigeenkiyaan diray mashaariicdii isbedelka cimilada looga hortegi lahay dhirta lagu abuuri lahay wax kasta lagu qaban lahay miiskay saaran